وسؤال شابقل تضوي تباتنات وسؤال عجائب لوي كودا وحي سؤال شكوب لو ذي إن الله لا يستحي من الحق وحي تري وحا إقبا ننشني حلي آن اسمي سننا أنا أقولين جماعنا يقول سمايا ستوس أهنا أيو يقول ماذا ومركو ربينو حاجة أقوتو وحا يرقبتا وحاد موده هردير بركا أيو هوشي سيقوتا أن التوس أيان أدريما هوشيسا وقتنا ملحن يقوب وكوكو سمايا هدي أن سوق جوجو يا هدي أن قولي جوجبا ويسوق ميت وحنا إن نعسيين كي عادي جاها ويقدري سؤال شيء وحي تاي كو سيدان السجع عليا إن كان جنكا لبو هديو جماعة قبيس ميا يقول واجبي إلا إن سيدان نكي عادي جاها قدري ما أيان إسنا قدري ميا جن يا إنسيس بيسكور سنكران بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان ددك لغا قسلي لكن waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen waxyaradan si kooban uga jawaabo horta way suuroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu Jinka iyo Insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jir iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba kamid oo nin rag yimid oo yiri waxaan hayst waan xaqiiqo jirta waay marka ragga jinsiga labada Jinka iyo Insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanay aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood insina uma galmoonin jinina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar kamida waxay u dilishay qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad أثر مجاهد وكأني باشيرو ما قال سوي هاي وحيد نينكو مركو حاسكي سأقل موني حدوثا أذكارتي آخرين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حدوثا آخرين شيطانكو إبتو إسقام مريابو حبين كترنك إبتيس هو إسقام مرياب كدبنا إسلامتي والله استعمالي بود مركو وشارككم في الأموال والأولاد تفسير تفاسير تكمل adiga way suuroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilma ma isu dhali karaan ma ka suurowda ilma jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Somalit laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin tayib dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadiise laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba
markaad dambiilaad taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo waa mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaala loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way ku kala aragti bedelan yihiin saayidna dhoo masaa'il horay looga hadlay waxay leeyihiin haddii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo bay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays markaa waajibi maayo waa ruux qarway oo kale Sooma ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekeysiyo nin caadi ah iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad baa soo hadhay inuu si toos soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo baa ka shaqeynaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin waa soo jeedaa xaaladda iyada haday biyo yimaadaan waa qabays haddaynan imaanin way isku khilaafsan yihiin culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkahayaba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see la isaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta la isaga celiyo Sooma afkaar farabadan quraanku soo aroortay qaabab kala gedisan xadiista nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'idh billah ilaahay inaad ku cararto adkaarta markaad seexanayso markaad muxuu ahaay soo toosto xilli walba waxay leedahay adkaar shayaadiinta la isaga celiyaa jirta iyo muxuu ahaay ducooyin inaad ku waabadsato ilaahayna ku cararto tabaaraka wa taala taas ayaad isaga celin kartaa ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa taala aad muxuu ahaay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiiq su'aasha ugu muhiimsan waxa weeye ma dhici kartaa jinniga iyo insigu inay isguursadaan bismillaahir rahmaanir rahiim salada culimadu way ka hadleen ala saxiixna waxa weeye muxuu ahaayay galmada iyo inuu muxuu ahaay u galmoon kara iyo saysh noocaas oo kale waa wax suuroobi kara ilaahay oo lam yatmithunna insun qablahum wala jan iyo ayadahaas wax kala baxbayaan laakiin meher mu'tabar ah iyo guur mu'tabar ah oo ahkaamtii leh inay intay isguursadaan kala dhalaan oo kala tarmaan maya ma suuroobi karto bal waxay leeyihiin hadii masalada la sugo nooc waxay noqonaysaa loo xeeladaysto shariicadiiba lagu baabi'iyaba oo haweeney kasto zinaysato garac dhasha de jimbaan isqabnaa bay dhihi Sooma hadii la furo la yiraahdo way isguursan karaan midda labaad sheekhi isu meherin lahaa waa kuma yaa isu meherin midna dadkeedii waa insi midna dadkiisi waa jin sheekhyaba qaali ka noqono meherin waligii seebu u bixin wax la fahmi kara ma Sooma saas taradeed xarig iyo meher ilma ku dhashaani sax ma jiri karto ama ma isticmaali karaa jinku dumarka insiga ma isticmaali karaa intuu iska soo dhigo bini aadan taasi